danta irun sheegte raganimo mawayne waxa maqlaysaan waxa wax looga qaban karaa wax yar yaan idin sheegaya waa sahal $1 milyan bishii meel loo dhigo qofkii soo sheegay baabuurkaas qarxaya $100,000 in la siiyo haddii uu rabana dibadda loo diro dawladahaasi lacag ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate gareyno runtii qarxadan waxay noqdeen wax soo noqnoqda oo aan dhammaan saas darteed yaan maanta waxaan u cilaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo kaliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal hadduu Ilaahay yiraahdo xaq ah bacdama aan xaq ku soconno Ilaahay inuu nala jiri doono insha Allah tan ugu muhiimsan oo ah inaysan lahayn inaan la siin caqiido ay ku dhintaan laakiin waa geesiin markay xabadda maqlaan waa wajahaya meesha xabadda ka socoto laakiin sida ay shabaab caqiido u leeyihiin ay u aaminsan yihiin hadday dhintaan inay janno galayaan annaga uma diyaarsanin umana diyaarin ciidankeena wadaniyad iyo patriotism umayna diyaarin